أولا waxaan mahad u celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nama kaniyey maalintan aada u barakaysan ee jumcaha ah. waxaan haddana runtii aan marti sharafka ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan oo iyo halkan ay u guddoomeen liiskii xildhibaanada qaybtii ugu horreysay ka imaanaysay culimaa diinka ahlu sunna wal jamaaca sida wanaagsan oo ay ula wareegeen ayakoo soo maray shuruudihii loo baahnaa ayna noqon doonaan biidni illaahi alkariim xildhibaanadii 89 ka ahaayoo galmudug aan rajaynayno in ay samata bixiyaan galmudug loo dhan yahay, galmudug mid ah, galmudug biskooto baraaro ku biskoota hormarta aan rajaynayno inay wax weyn ka tari doonaan haddii alla idmo isu keenidda iyo walaalaynta iyo midnimada beelaha galmudug. waxaan marka uga mahad celinaynaa guddiga laftiisa dadaalka dheeraadka iyo adkaysiga dheeraadka ay u gelayaan sidii ummadda la isugu keeni lahaa, loo midayn lahaa, wax mid ahi ay uga soo bixin lahaayeen, looguna socon lahaa waddo wanaagsan ee sax ah midnimo muujinaysa, walaaltinimo muujinaysa, isu soo dhawaasho iyo is-aqbalid muujinaysa. sidaa ay u soo dhirinayaan waa uga mahad celinaynaa. waxaan aada iyo aada haddana uga mahad celinaynaa runtii dadaalka dheeraadka ah ee dowladdu ku bixinayso arrinkaas ayaa dowladdana uga mahad celinaynaa. waxaan kaloo u mahad celinaynaa beesha caalamka oo iyaduna dowr ka qaadanaysa taageeridda iyo yacni soomaaliya oo dhan inay hore u socoto ku taageerahaya, maamul goboleedyada ku taageeraya, galmudug sidii ay uga dhalan lahayd dowlad goboleed loo dhan yahay ku garab taagan. ayaan rajaynayno inay sii garab istaagnaadaan intii ay lugaheedu uga istaagto. waa u mahad celinayaa guddiga xildhibaanada sharafta leh oo kuwii ugu horreeyey oo la qabtay oo shuruudihii buuxiyey 20ka iyakana waa u mahad celinayaa in ay noqdaan kuwii xilkooda u guta si wanaagsan oo waafaqsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raadiga ka yahay. wixii maalanba shareecada islaamka aan ku bannaanayna hadda qofna awalanaan ku boorinaynin. wixii sharciga islaamka ku bannaan oo sharciga islaamka uu raadi ka yahay oo ilaahay cabsidiisa ku dheehan tahay waa waxa aan ku hormari karna waay. markii aan ilaahay ka cabsanaa aakhira iyo adduunba noo hagaagayaan. marka waxaan ilaahay ka baryaynaa maalintan sharafta leh qiimaha badan ciiddii usbuuc ah maalintii lagu marti qaaday ilaahay rasuulkiisa iyo ummaddiisa ah saacatul ijaabada ku jirta ilaahay inuuna waafajiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. marka soo dhowaada.